muuqaalka guud ee magaalada Boorama iyadoo maanta halkan fooq casri ah laga dhisay oo ilaa shirkadda isgaarsiinta ee Telesom oo xadhiga laga jarayo dadweyne fara badan oo bulshada qaybaha kala duwan lagu marti qaaday iyadoo ka daawan doonta maanta xafladda sida uu dhacdo iyo sida ay yimaadeen dadka ku xiran ee macaamiisha la shirkadda Telesom اسمع عصوب يا Telesom فوق صدق يا برتمها magaalada Boorama ayaa maanta xariga laga jaray iyadoo halkaas dadweyne fara badan isku yimaadeen halkan waa halka sanadka adeega dadweynaha looga adeego dadweynaha ka iibsanaya macaamilada la shirkadda Telesom oo kaarka iyo mobilada iyo taagta halkan u soo dooranaya isgaarsiinta xarunta weyn ee Telesom oo ka taalla bartamaha suuqa Boorama waa fooq cusub oo inuu xariga laga jarayo maanta dadweynaha reer Boorama iyagoo xaruntan macaamil la ayaa halkan ka iibsanaya adeegyada ugu baahan shirkadda xarunta cusub ee shirkadda isgaarsiinta Telesom oo saaka xariga laga jarayo والله فعيل حرمت الصوم فوق حرق ما توقفت برصه وقبضها أوضل عصب فوق وين عصب شركة Telesom وما تحرق لك شريا هذا وحى حرق إمك شريا وقعنت مقص فقط يا برصة فقبض أول محمد الشيخ عبد الله يعقي بسم الله والحمد لله وعلى بركة الله جميل كتير من عصب Telesom halkan معايا شركته شرح الوقائع وسوق شغالها iyo maamulka gobolka قيبتها بينات وحيدو قبطان بي وحكور رمان وحن جعلتنا وحد ركتين إلى كور الدين عدو شكلت وساد وكسونتي بما غرتي
dhaqaalaha ugu badan gobolka awdal degeli karmaanti waxba ka hor dhici maayo hadallo badan oo gudoomiye xadeed oo cabdi xaaji aadan oo gudoomiyaha shirkadda ayaa insha Allah markaan jirno rays oo qadadana ku leenahay maanta isaga ayaa inoo fahmay doona insha Allah wixii warbixina waan ka baxay soo hadii loo ducayn xarunta cusub ee fooqa maanta xadhiga laga jaray shirkadda Tolosom ayaa halkan gudoomiyaha shirkadda Tolosom ee gobolka Awdal ayaa iyada hadal ka sheegay maanta halkan wuxuu ku bilaabay Cabdulqaadir bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaad ka markaad tihiin haddaad tihiin saxaafadii gobolka Awdal isha macanina dabqa inta laga qurxdiisa aad arkaysiin banigu wuxuu ugu tala galay lacagtii faa'iidada halin gobolka ku qurxiyo waana dabaqii gobolka Awdal iyo Salal dabaqii ugu qaalisanaa ee ugu quruxda badnaa laga dhisay isha macalina waxaan u maleynayaa waa leena sugayaa bilaahi وأنا سوي إنه كذي كل يوم يبعثون بالعافية إن شاء الله. dhammaan inta sharafta mudan mar kale ayaan idinku salaamayaa salaada islaamka oo noolaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamij maanta aynu halkan furitaanka ugu talagalay inaynu ku xusno inagoo hore u soo shaqeey iminka xarigii dhismaha halkan aynu isugu nimid inaynu barnaamijka oo aynu ku xusayno munaasibadda ku qabanno intii aanayna bilaabin barnaamijka oo aanan gudagelin oo isagoo halkan aayaad qur'aan ah oo barnaamijka aynu ku furanno inooga akhriyi doona